nina dhaqasho kugu dhiidhiye nina dhaqasho ayuu ku dhex joogaa nina dhimasho kugu dhiidhiye ninkii saytoo dhimashada u huray naftiisa wadanka halgankii la ogaa iyo waaya aragnimada wadanka aanu isleenahay maanta waxbuu ka wataa mas'uuliyadiisuna way ku dhammaystiran tahay xisbigiisuna wuu kaga tanaasulay 80 cod iyadoo Afrika la og yahay dimuqraadiyadda xaq ka gaarsiisanta waa mudane Muuse Biixi Cabdi mujaahidka qaranka hayaan islaanay sanadka maanta isaga dhalinyarada wax tari kara isaga wax qaban kara raygayga haddaan ka hadlo nina dhimasho ku dhex jooga nina dhaqasho ku dhex jooga oo qurbatoog buu kugu yimid madaxweynaha dhabta ee Soomaaliland hogaamin kara 5 sano soo socota sida ka tashi mala taaso ala ashana laguma qarin kara cadceeda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Irrawey waxaan ku taageersanay waa nin dadka wuxuu noogu ballan qaaday inuu simayo oo qabyaalada tirayo oo dadka dhexdhexaad u yahay ayuu noogu ballan qaaday bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha dalka insha Allah sidoo waa ku guuleysanayaa waxa weeye Cabdiraxmaan Cirro waayo waxa weeye wuxuu yiri qeynin askari reerka waa ka qribaya Muuse Biixi mashaahidka waa nin go'aan leh waa nin wadanka qaban kara waa nin wax walba kala bedeli kara nigaasa meesha loo baahay wadan muxuu yahay safiir buu ahaa oo ruush ku soo waashay Cabdiraxmaan Cirrana waxaanu leenahay hadaad wax ka qabanayso waanu ku dooranaynaa kulmiye waanu aragnaa oo waa fashilmay hantidii qarankay boobeen maanta waxa weeye dakadii barbare aanu lahayn boqolkiiba 5 baad qaadanaysaa oo waad siyaasteen waxa weeye jaadki waa xidhan yahay haddii arrinkaasi ku sii socdana waxa weeye Soomaaliland mushahar lama helayo waa la isdhacayaa ciidankuna uu soo goosanaya waa wax lagu siiya waxa weeye waa barbare iyo kastamka wassalaamu calaykum magacaygu horta waa Xasan Maxamed Cabdullaahi madaxweynaha mustaqbalka soo socda hogaamin karaan waxaan u arkaa inuu yahay Muuse Biixi Cabdi isagoo baa dalka hagi kara hogaamin kara shada sano socotana isagoo ma anagu dooranayna u tagnay bismillaahir rahmaanir rahiim hortaan u raygayga iyo fikraadteeda hadaa ka dhiibto dalka shada sano soo socda waxa xigi kara gudoomiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka injineer Faysal Cali Waraabe kaasaynu sii karayna xisbiga waayo ma aha xisbi caadifad iyo qabiilnimo ku dhisan waa xisbiga quraatay midnimada Soomaaliland u taagan magacaygu waa Salmaan Xasan Nuur wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa maanta hogaamin kara oo la isku raaci kara waa xisbigeenu wada arkayno ee musharaxa ka yahay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waan idin salaamayaa intiina dhammaan taageerayaasha halka guud ee doonaya isbedelka nin walba gacanta waxay ku jirtaa isbedelku wuxuu ku jiraa fartaada hadhow intaad oran lahayd fartaydii baan eersaday imika ba hubso dalka wuxuu ku jira nin waxa loo baahan yahay adag nin dul loo baahan yahay nin dulqaad loo baahan yahay nin waxa loo baahan yahay dadka kala garan kara nin waxa la garan karaa islaanta ariga wada nin geela kala garan kara nin looda kala garan kara nin biyaha kala garan kara nin dadka wax walba kala garan kara ayaa loo baahan yahay baashin kamid Cabdi baa leeyahay nin dalka iyo dalka ba hogaamin kara anigu Muuse Biixi Cabdi baan doonayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi aqoonteeda leh inuu yahay gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro waxa kaliya ku aaminay danta guud cid u dagaalanto ha wareejinina waa Cabdiraxmaan Cirro marka hore oo salaamaya saaxiibayaal qolada warbaahinta waxaan idin sheegayaa waxa yar fiican horta inaynaan khiyal isu sheegin waxa weeyaan wadanka kii doonaha ku guuleysto waxani waa tartan ma aha reer iyo cunsuriye qabyaalad ma aha xusbiyaal baa tartamaya ninkii nasiibkiisu uu soo saaro waxa la leeyahay galbi guusha nabadeed ilaahayna ha la garab galo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nin baa bari dadkan miiga markii la ahaa nin dawarsadaa habeen reer u tagay duco waraaba habeenkii qabsaday ninkii isagoo hilbihii la sii socda intaasoo dhan buu goostay ninkii sanqoolaa loo bixiyo ninkan qofka haddii wejiga la goosto uu fool xumaanaya sanka habeenkii dambe oo kii reer duco u sii doonanaya ayuu waraabii soo ciyey wuxuu yidhi ilaahay ha ku cadaabee waxaanad ogeyn sida lay nacay iyo sidan kuu nacay ayaanad ogeyn kulmiye waxaanu ogeyn ummaddu sida u nacday digan ninkuu gudubtaa waana loo kulmiyaan dooranayna
wax kale ma dooranayna mujaahid Muuse Biixi Cabdi kulmiye waxqabadkiisa waa la arkay wuxuu qabtay weynaga arkeen oo idin muuqataa inta halka in hore looga sii socdaan jecel lahay xisbiga kulmiye mujaahid Muuse Biixi Cabdi ayaan jecel lahayn mar labaad ugu celiyo